sawirkii uu ka sheekeeyay imka wasiirku aanu qoladii koonfurta wada galnay waxaan aad iyo aad uga mahadnaqayaa shacbiga Soomaaliland oo dhan sida feejigan xamaasada leh dhiifoon dal jacaylka ah ee waxay qoonsaan uga jawaabaan ama warkaan dalkooda wax ka dhacay aad baan soo dhaweeyay xamaasadii iyo sida ay dacwo arinta u dareemeen si ay ugu fahmaan markiiba qaran jacaylkooda ku tusaysaa dhiirigelin bay ku siinaysaa kalsooni bay ku siinaysaa inay ummadu dagaalka iyo qaranka wada simantahay meel ka wada eegayso waxa kale oo iyana kalsoonina inay ka hadlaan haday arkaan madaxooda waxaan fahamsanayn inay markaaba dhiifoodeen warwa qaranka maxaa dhacay wax loo sheego marka xamaasada ka kacday ee ninkaas uu sheegay aad iyo aad baan soo dhaweynayaa dawladda kalsooni badan bayna siinaysaa marka amniga halkaas aan kaga harayaa Soomaaliland waxay ka cabato waxa ugu badan madaxweynaha oo wada jooga caalka ana waxaan ahay nin dhalisha aad u ogol oo aan ka xanaaqin marka la leeyahay waayo afartan sano mucaarad soo afartan sano mar isoo dhaliilay mucaarad soo soo meel joogtay marka aqliga noqon mayso maanta illa iga boqo qof dhaliilay ama qof iga xanaaqay inuu igala maaga aniga waayo waxaan garanayaa dareenkiisa qofka mucaaradka wuxuu yahay ayaan aad u garanayaa marka uu soo joogsanaya laakiin mucaaradku isna midii ku daray mucaarad baana war cabanaya taydoo la yeerimay cabasho deyn maayo tadalka danta wala yeeray taydana la yeeri maayo ta mucaaradka la yeeri maayo dalka maxaa u darin yeelayna aniga taydoo waa la iga soo dhaqaajin adna taada waa laga soo dhaqaajin qaranka halka u dhaxay dhigayna ninkay taasi cunto weeydaa isaga gardaran mucaarad maxaafisku yahay taana dastuurka sheegay wada tashiga sheegay wax wada lahaasha sheegay dhibaato weyn baan haysata waxa weeye dadku dawladnimadii aad iyo aad ayaa qarad uga fahmay مثلا waxaanu heshiis ku nahay musuqmaasuq wax la dagaalamo waxaanu heshiis ku nahay sharcigu ha shaqeeyo laakiin waxa doonaya oo dalkeen naga soo baxay markii aan talaabo ismi qaado in qofna aanu ogolayn qofka isaga wax isu yihiin ee reerkooda ah in musuqmaasuq lagu qaado dhammaanna waxa lagu canaanaya madaxweynaha musuqmaasuqa jawaabta wax ka qabo hay hadaad kii shanta furada kula jiray qabatana dagaal reer baa ka cayo cirka u ka cayo maxay kaaga loo sheeganay waana dhacday iyadoo xaqiiqana waadinaya waxa kamid ah waxa leeyahay sharciga waxa shaqeeyo qofku hadduu dambi kasta galo oo la wada arkayo oo xataa dil ay tahay ayaa sheekhi ama nin shan salaad kanaya nin wax dilay u arkayo ayuu doonayaa inuu dambi basuul hada meelaha laga sii daayo sharciga qofka la soo xidhaba shalay halkan aan joogo Ismaaciil yar uu jooga ninba walaalkii la xidhay meelaha jooga dawladda hoose xidhay waa dhul iyo wax yar telefoon buu ka dhigay Ismaaciil yar in hada shay war maxad leedahay soo ninka dawladdu yaqaan hadii hal hubsado hatta hal hubsado ee way wan Saciid Cumaad too xiraysa walaalkii loo xidhaaba arwaa runtii halkan waa la xidhay wax galay waa la xidhay sal calee hal isoo marka waxaan u baahanahay labaan is qabanin ma wadi karno sharciga hal furiyo iyo anaga yaan lagu qaaday يهبليان لو قاده مسماسق هلا قبطو يا كان غري لا قبن waxay baa dadka wacyigoodii kor loo qaado waa burburkii waa baraadaan koonfurta ka soo qaadnay waa wax sii jiitamaya